kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idiin soo jeedinayo anigoo Cabdikariin Olole idinkana imanaya xafiiska Laascaanood online xaruntiisa magaalada Laascaanood. barnaamijkan oo aynu ku eegi doono doorka waxbarashada iyo horumarinta dhanka waxbarashada ee deegaanka Godaalo oo ka tirsan gobolka Sool. deegaankan ayaa dhawaanahanba waxa dadaal dheer ugu jiray dadka deegaanka iyo mid ka mid ah hay'adaha Soomaaliyeed ee iyagu degan wadanka Canada oo lagu magacaabo Irfan Canada oo qayb lixaad la ka qaadata sidii waxbarashada iyo horumarinta iyo dhanka nolosha looga taageeri lahaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan deegaanadani. iskuulkan oo kamid ah iskuulada ugu waaweyn ay dhistay hay'adda Irfan Canada iyo dadka deegaanka iyadoo taageero ka helaysa. intayna barnaamijkeena u gelin aynu ku yaranasano qadar ku saabsan iskuulkaasi iyo muuqaalkiisa. xaaladda deegaankan ayaa waxay tahay waxbarashadeedu mid si weyn ay u soo dhaweeyeen dadka deegaankaasi ku dhaqan iyadoo dadka deegaanka iyo hay'adda Irfan Canada ay qayb weyn ka qaateen sida iskuulkaasi looga hirgelin lahaa library casri ah oo ay caruurta uga faa'iideystaan. Godaalo waa meeshii ugu horeysay laga hirgeliyo library dugsi hoose dhexe oo ay yeelanayaan ardayda wax ka dhigata deegaanadani. deegaanka Godaalo dadka ku dhaqani waa dad danyara inkastoo ay u dadaaleen dadka qurba joogta iyo dadka iyagu ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool waxaana si wada jir ah looga qayb qaataa sidii loo horumarin lahaa. waxa laga furay library aad u casri ah oo loogu talagalay inay caruurta aadka u daadayar ay ka faa'iideystaan si ay aqoontooda kor ugu soo qaadaan. arrinkan ayaa wuxuu yahay mid ay soo dhaweeyeen dadka aqoon-yahanka ah ee iyagu ku xeel dheer waxbarashada ayaa waxay tahay doorka quriya ee lagaga bixi karo in qofka la khaldo ama maskaxdiisa siyaabo khaldan loo adeegsado taasoo qofka aqoonta leh uu yahay qof markasta garaadkiisu fog yahay si sahlan aan loo marin habaaban karin. deegaankan oo ay ku badan yihiin dad fara badan oo iyagu aan aqoon fara badan lahayn bulshadana isku daya in ay door muuqda ku dhex yeeshaan kuwaasoo dhibaato iyo hagardaamo ba'an ku haya ayaa waxaa laga yaabaa in isbedel ballaaran uu ka dhaco deegaankan oo dhanka aqoonta loo jihaysto taasoo wax badan ka bedeli doonta nolosha siyaasadda iyo horumarinta caafimaadka iyo guud ahaan arrimaha bulshada. I want to pass here Irfan the Islamic best greeting and I want to say first assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and then I am supportful the supply with the route for us. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaynu hadeer ku guuleysanay inaynu xariga ka jaro maktabada ama library-ga buugaag lagu akhristo oo lagu kaydsado iskuulka hoose dhexe ee Godaalo ka oo aanu aad iyo aad uga mahad celinayno intii ka qayb qaadatay hirgelintiisa oo ay ugu horeeyo ururka Irfan Canada oo awalna dhismihii iskuulka lahaa hadeerna muxuu ahay library-ga iyo qolalka dambeeto ku daray. waxaan ay keeneen aan uga mahad celinaynaa dhismaha ka sokow waxay keeneen buugaag waxay keeneen kuraastii waxay keeneen miisadihii waxay keeneen 7 shelfis oo waaweyn oo buugtii lagu habeeyay oo dhan muxuu ahaayay waxba lagu akhrisan karayaa macallinka darsiga ku soo diyaarin karaya ardada buugaag loo dirayaa waxa leeyahay mawduuca wax ka soo qora inkastoo ay niman ilaa 8 ka kaliya ay yihiin oo dugsigu 8 fasalada uu ka kooban yahay
oo markii horeysa hadda imtixaankii midaysnaa ay gelayaan waxaan ardada iyo macallimiinta iyo dadweynaha kula dardaarmayaa library-ga in la dhowro in la dhaqaaleeyo buugtiisa inaan la googoyn inaan la rifin inuusan wasaqoobin aad iyo aad in loo dhowro oo looga faa'iideysto ayaan intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah oo dhanka waxbarashada iyo horumarinta deegaanka ayaanu waxaan idinkaga tegayaa anigoo cabdikariin olole iyo dhammaan howlwadeennada laascaanood online xarunteeda magaalada laascaanood wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu firma